haddana waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno wacdi diini ah iyo faa'iidada waxbarashada oo aan ku soo dhaweynayo Sheekh Tahliil والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa aad iyo aad maanta sharaf igu ah inaan ka soo qayb galo xafladan aad iyo aad u qiimaha badan kuna saabsan dhallaanka Soomaaliyeed oo ka soo daalay colaad iyo abaar iyo dhibaato badan la soo kulmay sidii maaragtay carruurta yaryarka ah oo ah mustaqbalkii dalka in maaragtay wax la baro xafladan ku saabsan aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay. waxaan leenahay dadkii arrintaas soo abaabulay ilaahay khayr iyo abaalgud ilaahay ha u abaalgudo, annagu uma abaalgudi karna ilaahay maaragtay ha siiyo. mar haddii ummaddu isu timaado dad muslimiin isu yimaadaan inay macruuf isfaraan munkarna iska reebaan waa xaq waajiboo la isku leeyahay. waayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii qoom meel ku kulmaan oysan macruuf isfarin munkarna iska reebin nusqaanay kala tagaan meesha. qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. saasaa ilaahay leeyahay ka cabsada ilaahay maaragtay ka cabsada kownkan abuurtay nagu beeray dhexdiisa inaan ka cabsanno ayuuna farayaa. haddaan ilaahana untay aanu ka cabsanno adduun iyo aakhiro dhan baan helaynaa. haddaan maaragtay ilaahay awaamirtiisa diidnana adduunyadana waxaan ku noolaanaynaa dhibaato, aakhirana cadaab baa ka dambaysa. marka waxaa loo baahan yahay qof kasta ilaahay wuxuu aayad kale ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. insi iyo jinni ma abuurin, waxaan u abuuray laakiin waxaan u abuuray inay caabudaan. cibaadadaa ayada ah waxaa loo baahan yahay inaan qabsanno. waad ogsoontihiin adduunka inta la joogaya waa wax yaroo kooban, muddo yaroo kooban. muddadaa ilaahay kuugu talagalay ilaahay wuxuu ugu talagalay muddadaas aad noolaanayso inaadan ilaahay halmaamin ood ku xirraato, inaad maaragtay ilaahay ka cabsato, wixii ilaahay ka xarrimay inaad ka leexato. ittaqillaaha yajcal lahu min amri yusr. ninkii ilaahay ka cabsada amarkiisa ilaahay waa fududeeyaa, umuurtiisana ilaahay waa fududaynaya. marka waxaa loo baahan yahay ilaahaana untay inaan ka cabsanno oon caabudno. cibaadaduna waxay u baahan tahay barasho. cibaado ma ansaxayso haddaadan aqoon u lahayn. waxaa loo baahan yahay diinta in la barto, waxaad ilaahay ku caabudaysa inaad barato. ilaahay wuxuu leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah. faclam baro annahu alle laa ilaaha ila allah, isaga maa inay ilaahay kala jirin baro. saasaa lagu leeyahay. marka walaalayaal waxaana sugayaa muxuu ahaay ciidan hoosteeda qabr. qof walbana waxay la kulmi doontaa markii dhulka hoosteeda muxuu ahaay la geliyo, waxay la kulmi doontaa waxay adduunyada soo kasbatay. hadday khayr yihiinna raaxay la kulmi doontaa, hadday shar kasbatana cadaabteedu qabrigu ka bilaabanaya. marka inaan dhimanayno waa inaan maaragtay ku fakrinaa mar walba, saacad walba. intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan u gudbo dad Soomaaliyeed oo iskaalmaystay oo aad iyo aad uga xanuunsaday dhibaatada ummadda haysata, dadkoodii haysata. yaa waxay isu xilqaabeen oo isku dayeen inay dadka aan fiiga iska bixi karin. waad ogsoontihiin dugsiyada waxbarashada dalka ka jirta dadka waxbartaa aad iyo aad u yari. dal walbana horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay inta aqoontiisu tahay. dalku hadduu aqoon leeyahana waa horumaraya, hadduusan aqoon lahaynna waa baaba'aya. marka inta wax ka barata aad iyo aaday u kooban tahay. raggaa Soomaaliyeed oo muxsiniinta ah
oo gartay ilaahay fahamsiiyey inay ummaddooda waxay kari karaan u qabtaan ayaa barnaamijkan soo unkay oo soo bilaabay dhowr arrimoodba yay ujeeddadoodu tahay marka u horraysa inay ilaahay xaggiisa ajir uga helaan waayo qofka hadduu dhinto saddex shay unba anfacayso markuu dhinto ka bacdi waxaa weeye sadaqa jaariya sadaqa uu sadaqaystay oo ama ceel uu qoday ama masaajiduu dhisay ama wax ummaddu ku intifaacdo ayuu sameeyey inta lagu intifaacayo ajirkeedu waa u soconayaa isagoo qabriga ku jira welad saalaxa hadduu dhalo oo uu tarbiyeeyo si fiican uu wax u barana weladkaa ducadiisu ilaayo inta uu muxuu ahaayey jiro ducadiisu waa u soconaysaa qodobka saddexaad waxaa weeye hadduu dad wax baro waxbarashadaas inta muxuu ahaayey qofkaas wax bartay oo qof kale sii wax barayo ayadana ajirkeedu waa u socotaa waa kaleey ajirkaas isaga ah ayaay muxuu ahaayey ilaahay fahamsiiyey inay maaragtay dadka wax baraan ayaa ilaahay fahamsiiyey ajirkeedana waa helayaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran qodobka kale oo ujeeddadoodu ay tahay waxaa weeye qofku hadduu wax barto oo aqoon yeesho ama waddammada ay joogaan oo dabadda sida dadkoodu maaragtay wax bartay faa'iidada ay leeyihiin markay arkeen ka bacdi waxaa qalbigooda ku beerantay waddaninimo iyo waddankoani maxaan u qabannaa rafaadsanaayoo dhibaatadu haysatay taasna waa qodob kale oo waddaniyada oo ummaddooda ay u naxariisanayaan ilaahay haydinka abaalmariyo waxaan kaloo u yeedraynaa dadka ilaahay wax siiyey oo ilmahooda fiiga ka bixiya oo dhaqaalaha haystooo soomaaliyeed inay ku daydaan dadkaa iyaka ah oo arrintan soo unkay inay ku daydaan oo qofkii hal canug ka bixi kara oon waxbarashadii waalidkeeda uusan waxbari karin hal qof ninkii ka bixin kara inuu ka bixiyo marka waxay noqonaysaa marka mujtamacii sidaas haddii laysu kaabo wuxuu noqonayaa mujtamac isku xiran isu naxariista muxuu ahay isdaneeya kiisa liita kor u soo qaada waana waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay maaragtay saa isu gargaaraan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahu fii cawni akhiih maa daama fii cawni akhiih wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay wuxuu u kaalmaynayaa addoonka intuu walaalkii asna u kaalmaynayo marka waxaa loo baahan yahay arrintaa iyada in inay arrintaa ka qayb galaan intaas kabacdi waxaan u gudbayaa aqoontu faa'iidaday leedahay ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ma siman yihiin kuwa aqoonta leh iyo kuwaan aqoonta lahayn ma siman yihiin waxaa kaloo la yidhaahdaa alcilmu yabnii daaran laa camuuda lah waaljahlu yahdimu baysa alcizi waasharaf cilmigu wuxuu dhisaa bayd guri aan tiir lahayn wuu dhisaa jahliguna dabaqyo dheerdheeruu dumiyaa waad aragteen dalkanagi sida loo dudumiyey jahliyaa dumiyey wax kale ma dumin markaad aragto meeshii dhihi jiray booli qaran iyo xamar nuskiis waa baaba'san yihiin waxa dumiyey waa jahli mahmaadaas waa mid sax runtii mid saxa weeye halka qof oo wax bartay wuxuu ka qiimo badan yahay 100 qof oo dhan wax baran oon aqoon lahayn ayuu ka qiimo badan yahay marka cilmigu waad aragteen wax walba asaga lagu dhisaa waxaa loo baahan yahay marka qof kasta oo waalid sharciga islaamka waajib ku tahay inuu ilmihiisa wax baro nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiis علموا أولادكم السباحة والرماية دباش برا iyo genida wax la geno qofku jihaadku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamku ka mid yahay ahkaamta islaamku ka mid yahay qofku hadduu san tababar lahayn oo uusan muxuu ahaayay
sida waxanka xarbiga iyo maaragtay difaac uu ka dhisan yahay xagga diinta islaamka uu ka dhisan yahay maxaa jira waxaa la yidhi almu'minu alqawiyu khayrun min almu'mini aldaciif wa fii kulli khayr mu'minka qawiga waa midka dhan walba ka dhisan wuxuuna ka khayr badan yahay kan midka daciifka ah oo liita wa fii kulli khayr mid kastaana khayr buu leeyahay marka cilmigu wax la gaari kara maa waxaan aragno isheenna ku aragno weeye waxaan dayaarad duulaya ama marka badda socda ama muxuu ahaayey dhulka laga soo saaro risaaqada dhulka ku jirta waxa soo saara waa cilmiga marka annagu waa ka baahannahay meel cidlaan ka joogna waxaa loo baahan yahay marka inaan ka daba tagno waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinta ilmaha dhashay oo nasiibkoodu maanta siiyey in carruurtoodii fiiga laga bixiyo waxaannu leenahay nasiib weynaad leedihiin haddaad adinku awood u yeelan weyseen inaad ilmihiinnii fiiga ka bixisaan ood wax bartaan waxaa ilaahay idiin soo saaray dad muxsiniin oo wanaagsan tacabkooda ha bi'innina ilmahana waxbarashadooda ku dadaala ayagaana ha khasaarinina adiguna ha iskhasaarin ubadkaagana ha khasaarin markuu wax barto wuxuu noqonayaa mid ku anfaca naftiisana anfaca dalkiisana anfaca ayuu noqonayaa hadduusan wax baran oon la tarbiyayn wuxuu noqonayaa kuwa culayska mujtamaca ku ah kuwa tuugada ah kuwa dadka dila kuwa isbaarada dhigta ayuu noqonayaa marka waalidiinta waxaan kula dardaarmayn inay ka badbaadiyaan kuwa noocaas oo kale ah inay ka badbaadiyaan ubadkooda oo wax baraan oy tarbiyeeyaan aad isaga xil saaraan nasiib weynay leeyihiin inaysan muxuu ahaay barnaamijkaas maanta lagu bilaabay ay ka faa'iidaystaan oysan suuqa ku sii dayin carruurtooda oy dugsiga la xidhiiraan oy macallinka weyddiiyaan waxbarashadiisa oo mar kasta ay dugsiga la xidhiiraan taasaa maaragtay waalidiintan aan ku waaninayna in ay maaragtay ardada aysan waalidka u sii daynayn mar kasta ay kontarool sameeyaan sidii looga faa'iidaystay barnaamijkan dadkan xoolaha ay bixinayaan sidai uga faa'iidaystaan inay dabagal ku sameeyaan muxuu ahaayey bishii mar isu yimaadaan la kormeero dugsiyada muxuu ahaayey sida looga faa'iidaysta la fiiriyo arrimaha iyaga ah waa in maaragtay iyaguna ay ku dadaalaan